magacayga waa Siin Maxamed Axmed waxaan ahay aasaasaha shirkadda Aragsan Organics oo ah shirkad soo saarta waxyaabaha dabiiciga ah sida saliidaha oo kale oo 100% organic ah. Gobol waxaan ku arkay social media gaar ahaan Facebook kaasoo aan balay gareeyay kadibna aan ka mid noqday dadkii guuleystay ee ku soo baxay shortlist-ka. Markaa ka bacdi Harab waxaan siisay tababarka markii aan qaadanay ka bacdi waxaan ka mid ahaa dadkii ku guuleystay maalgelintii Harab ay bixinaysay. Maalgelintii markaan qaadanay oo ah nooca equity-ga ganacsigan sameynayay intaas kuma filan saa darteed Harab waxay fursad ii siisay inaan isticmaalo tarmiye crowdfunding platform oo ah nidaam casri ah oo lacagta lagu urursado. kadib waxaan sameeyay halkayga qaraabadeeda asxaabteeda aan u soo bandhigay si ay igala qayb qaataan barnaamijka shaqo abuurka ee aan doonay inaan hirgeliyo. waxaan urursaday lacag $4,000 Harabna waxay siisay $4,000 oo kale oo maalgelin ah. sida ayayna igu suurtagashay inaan bilaabo ganacsigaygan. waxaan sameeyay mashiinada barkiga dhinaayaan ku darsaday kadibna waan keenay mashiinadii kadibna ganacsigayga sidii baan ku sii horumarinay oo waxyaabo badan oo markii hore aan naga dhinaayaan ku soo kordhinay maalgelinta Harab la siisay. ganacsigayga oo ku yaala xaafadda Calaamada markii maalgelintaan helay ka bacdi waxyaabo badan baa noloshayda iska bedelay ay ka tahay in marka hore aan ahaa qof runtii aan shaqo aan qabanay laakiin aan iminka aan noqday qof isagu mulkiila ah oo isagii loo shaqeeyaa oo ganacsi yeeshay inaan noqdo oo ilaa 3 qof oo kale ay la shaqeeyaan iminka 4 qof aan ku shaqeynaa anigoo asaasa ah marka laga tago. waxaan ku soo beeganay xilli ay aafo ay saameysay caalamka oo dhan COVID-19 oo kale. COVID-19 waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid ah in socodkii ay istaageen oo dadkii ay tagi kari waayeen ama ay ku adkaatay goobii ganacsi inay booqdaan. marka anagu taa waxaan kaga dabaalanay inaan social media aan xoog saarnay oo aan sameynay promotion fara badan oo aan xaysiis fara badan ku sameynay. marka ka bacdi dadkii customer-ka ahaa aan ku dadaalay inaan ugu geyno goobahooda ganacsi ama guryahooda inaan ugu geyno dalabkoodii anagoo isticmaalayna sida mootooyinka delivery-ga oo kale. waxaa jirta dhalinyaradu badan inay dhibaato ay kala kulmaan sidii ay u heli lahaayeen maalgelin. laakiin alxamdulillah waqti xaadirkan waxaa arintaas suurtagelisay oo fududeysay waa Harab oo ka caawinaysa dhalinyarada inay si fudud ay ku heli karaan maalgelintoodii iyagoo aan dhibaatooyin badan aan kala kulmayn oo fududeynayaan isla markaana ay u dheertahay inay helaan tababaro tayo leh ay ku horumariyaan ganacsigooda. marka dhalinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa fikradaha ganacsiga inay la baqanin fikradooda just ay isku dayaan inay aasaasaan oo ay sameeyaan fikirkii ay la yimaadaan kadibna waxaa ka caawinaysa muhiimadu waxa weeye inaad ku dhaqaaqdid oo ku tallaabsatid himiladaadii aad ka midho dhalisid.